Smart Optical hoyga muraayadaha ee Hargeysa. Meheradu waxay ku taalaa Burjuwo Mar dabiqiisa labaad. kusoo dhawaada barnaamijkeeni dhambaal quraan. waxaan xalqadan ku eegi doonaa Ya'juuj iyo Ma'juuj. Yihiin maadana mise ma aha, nooceebay u eegyihiin, qisadoodu waa maxay, halkeebay ku xidhan yihiin, goormay soo bixi doonaan, goormaase laga takhalusi doonaa. kusoo dhawaada xalqadeena tan ah. aynu ugu horreysiinay Ya'juuj iyo Ma'juuj maadana run ahaantii culimadu way isku khilaafsan yihiin, waxaana qabaan in badan oo kamid inay yihiin noolayaal ka yimid hawada sare. saatee sida saxda ah adilada quraanka iyo sunnahuna ay noo sheegayso Ya'juuj iyo Ma'juuj waa laba qoom oo ka tirsan duriyadii nabiyullaahi aadam calayhi salaam. waxaana u daliila xadiiska nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu ku sheegayo in maalinta qiyaamaha Allah subxaanahu wa tacaala uu dhawaaqi doono nabiyullaahi aadam calayhi salaam, uuna ku oran doono nebi aadanow ka soo saar duriyadaada ehlunaarkeedii. nebi aadam waxa uu ka oran doonaa allow ooyaan soo saara. waxa uu ka oran doonaa alla subxaanahu wa tacaala kunkii walba 99 ka mid ah naarta uu soo saar. xadiiska iyo warka noocaasa markay saxaabadii nebigu calayhi salaatu wasalaam maqleen aad baa ay u naxeen. hase ahaatee nabigeenu calayhi salaatu wasalaam waa u dejiyey, waxaana uu sheegay in dadkan tirada aadka u badan leh ee naarta gelaya ay yihiin Ya'juuj iyo Ma'juuj. taasina waxay daliil cad u tahay siday u tirada badan yihiin, shakligooda iyo noocay u egyihiin. nabigeenu calayhi salaatu wasalaam xadiis kale waxa uu ku sheegayaa in ay yihiin dad weji balbalaaran ood moodo wejiga in duba lagaga garaacay, indhahoodu aad u yaryar yihiin, sidoo oo kale timahooduna ay yihiin madow casuusi ku jirto. waa qoom aad u tiro badan, dhulka iyo arladana aad u fasahaadin doona marka alla subxaanahu wa tacaala ooda ka soo qaado. qoomkani waxay ku xidhan yihiin sad amaba gidaar aad u weyn, waxaana ku xidhay sida alla jalla fiiculahu uu ku sheegayo suuratul kahfi nin aad u wanaagsanaa oo la odhan jiray dulqarnayn. sababta ugu xidhay Ya'juuj iyo Ma'juuj sadkan amaba gidaarkan aad ka weynina waxa weeyaan dulqarnayn waxa uu ahaa nin aad u safaro badan, adduunyada afarteeda dacalna waa u gaadhay. safaradiisii safar ka mid isagoo ku jira ayaa waxa uu la kulmaya qoom iyo dad aan hadalka aqoon. qoomkaasi waxay u sheegayaan si ay ula xidhiidheen alla oge in ay jiraan qoom kale oo dhibay dhulkana fasahaad ku haya, aanay doonayaan inay lacag ku siiyaan si uu qoomkan god bay ka soo baxaane halkaa ugu xidho. dulqarnayn waxa uu sheegayaa inaanu xoolahooda u baahnayn, hase ahaatee uu xoogooga u baahan yahay si uu qoomkan ugu xidho halkaa ay ka soo baxayaan. maalinkaa dulqarnayn xidhay ilaa maalinkaa maanta waxay ku xidhan yihiin sadka amaba gidaarka kaasi ah. dulqarnayn hase ahaatee waxa uu tibaaxaya sida alla jalla fiiculahu uu ku sheegay suuratul kahfi in sadkan iyo gidaarkan ay ku xidhan yihiin Ya'juuj iyo Ma'juuj aan weligii daa'imi doonin, hase ahaatee maalin maalmaha ka mid ah uu dumi doono. Ya'juuj iyo Ma'juujna ay dabadda uga soo bixi doonaan gidaarka kan ah. nabigeenu calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid ah ayaa uu soo gelaya horidiisii Zaynab bintu Jaxsh, waxaanu ka odhanayaa carab hoog baa u sugnaaday hadday og yihiin beleda ku soo socota. waxay weydiinaysaa Zaynab radiyallahu canha, nebi allow maxaa jira? waxa uu nebigu calayhi salaatu wasalaam u sheegayaa in sadkii iyo gidaarkii ay ku jireen Ya'juuj iyo Ma'juuj maanta dalool yar ka dalooshamay. waqtiga nabiga calayhi salaatu wasalaam sheegay ilaa maalinka maanta ana way qodaan Ya'juuj iyo Ma'juuj gidaarka kaasi ah. hase ahaatee marka gabaldhacu soo dhowaado ee ay daalaan ayaa ay ka tagaan, waxaanay hoydaan iyaga oo midba midka kale uu ku leeyahay inaga marsha maalinka berri ah ayaynu halkaa ka sii wadi doonaa. waa ay ka hoydaan, waagu markuu dilaacana waa ay ku soo kalaxaan. hase ahaatee waxay ugu soo kalahaan gidaarkii oo sidii hore si ka adag ah
dibna isku cusboonaysiiyey. haddana halkiibay ka bilaabaan qoditaankii. maalin walba sidaasi ayaa ay sameeyaan ilaa alla jalla ficulaah uu doono inuu gidaarka iyo sadka kana kasoo furo hoodana kasoo qaado. wakhtigaasina waa wakhtiga qiyaamuhu soo dhowaanayo. sidii caadada u ahayd gidaarkiibay qodayaan. intii in leeg markay uga harsan tahay ay weligoodba ka hoyan jireen ayaa mid ka midaba waxaa odhanaya ina marsha insha allah berri baynu intaa kusii dari doonaa oo aynu dumi doonaa. weedha insha allah waxay keensanaysaa inaanu gidaarku dib isku cusboonaysin. intii ay kaga teegayna uu sii taagnaado. markay kusoo kal lahaan gelin horeba cagta ayay soo marinayaan. dunida iyo caalamkan aynu ku nool nahay bayna usoo baxayaan. guutadooda koowaad markay sidaa usoo baxda waxay kusoo beegmi doontaa buxayro amaba haro la yidhaahda Tabariya. intooda ugu horeysa ayaana cabi doontaa. inta dambena way kusii durdurin doontaa. kooga ugu dambeeya marka uu soo marana waxa uu odhan doonaa meesha tana marbay biyo fadhiyi jireen. wakhtigaas ay Yaajuuj iyo Maajuuj soo baxayaan. waxaa arlada iyo dhulka ku sugan nabiyullaahi ciise oo soo dilay kana soo takhallusay masiixu dajaal. alla waxa uu soo waxyoonayaa nabiyullaahi ciise waxaanu ku odhanayaa addoomma aan leeyahay baa dhulkaan ku soo daayay. adiga iyo sidoo kale cid kula mid ah amaba kaa awood weynina ma awoodo inay iska celiyaan. waxaad samaysaa adiga iyo mu'miniintu israaca waxaanad fanataan ood fuushaan buurta loo yaqaano Duur halkaana kaga gabada. nabiyullaahi ciise amarka eebba waa u fulinaya. isaga iyo mu'miniintii la socotayna waa israacayaan waxaanay u jeedsanayaan dhanka iyo buurtii Duur. Yaajuuj iyo Maajuuj waxa ay soo gelayaan dunidan iyo caalamkan aynu ku dhaqanahay. Yaajuuj iyo Maajuuj maalinba waxa ay soo gelayaan magaalo. magaaladaas wixii ceesh yeelana waa ay cunayaan. dadkeedana gamta ayay u joogsanayaan oo xabadii ka fakan mayso. maalinba magaalo ayay magaalada kale uga sii gudbayaan. haddana dalka kale ayay uga sii gudbayaan ilaa arlada ciddii joogtay ay wada laayaan. kadibna leebabkoodii ayay u jeedinayaan cirka. heer ay gaadhaan inay yidhaahdaan waanu ka takhallusnay ciddii ku sugnayd arlada talow aaway ciddii ku dhaqnayd samado. nabiyullaahi ciise calayhi salaam iyo mu'miniintii la joogtay saadkii iyo saahidii ay siteen baa ka go'aya. dabeetana alle subxaanahu watacaala baryayaan iyaga oo ka baryaya allow qoomkan aad nagu fitnaysay dartood waanu u dhibtoonay si naga dheh. waxay ducadii iyo alla baryigii wadaan. maalin maalmaha ka mid ayaa nabiyullaahi ciise ka dhex kacaya mu'miniintii waxaana uu ku odhanayaa yaa doonaya inuu jannada igula rafiiqo oo intuu buurta ka daadego soo eegaya bal duulkii Yaajuuj iyo Maajuuj waxay ku sugan yihiin. dhammaan dadkii mu'miniinta ahaa ee nabiyullaahi ciise calayhi salaam la joogay iswada adkeynayaan iyaga oo ka baqanaya dadkan iyo duulkan fidna wadayaasha ah. hase ahaatee nin ayaa ka dhex kacaya. ninkaasi waxa weeyaan ummadda ilaahay ee adduunyada ku sugan waagaas. nabiyullaahi ciise marka laga yimaada ninka ugu fadliga badan leh. dabeetana buurtii buu ka daadegaya. kadibna ninkii mu'minkaa markuu dhulka u dhaadhaca waxa ishiisu ku dhacaysaa ugu horeeya waxay noqonayaan meydkii iyo baktigii Yaajuuj iyo Maajuuj oo buux dhaafiyey dhulkii. qarmuunkoodii iyo baktigoodiina aanad dhulka mari karin. kadib markii alle subxaanahu watacaala uu halaagay isagoo uu soo diray jundi iyo ciidan ka mid ah ciidamadiisa. ciidankaasi ma aha malaa'igtiisa ka mid ah. alle subxaanahu watacaala Yaajuuj iyo Maajuuj kumuu halaagin dabayl aad u xoog badan. kumuu halaagin dab iyo sidoo oo kale fulkaane. hase ahaatee alle subxaanahu watacaala waxa uu ku halaagay dulka aadka u awoodda badan leh dirxi aad u yar. ninkii mu'minkaa markii uu arkay alle subxaanahu watacaala oo halaagay Yaajuuj iyo Maajuuj waxa uu u cararayaa dhankii buurtii Duur isagoo u bushaareynaya nabiyullaahi ciise calayhi salaam iyo mu'miniintii la joogtay uguna bushaareynaya in alle subxaanahu watacaala uu halaagay Yaajuuj iyo Maajuuj. nabiyullaahi ciise calayhi salaam iyo mu'miniinta waxay ka soo dhaadhacaya buurtii mise waaba arladii iyo dhulkii oo uu buux dhaafiyey baktigii iyo meydkii Yaajuuj iyo Maajuuj. sidoo oo kale meel ad cagta dhigtaana aanay jirin. qarmuunkiina isqabsaday. ilaahay bay baryayaan oo ay ka odhanayaan rabbow baktigoodan si naga dheh. ilaahay waxa uu soo dirayaa shimbiraha aad u waaweyn kuwaasi oo guraya baktiga Yaajuuj iyo Maajuuj. shimbirahaas marka dhulka ka dhammeeyaan baktigoodii waxaa ku sii hadhaya dhiigoodii iyo dheecaankoodii kuwaasi oo keenaya qarmuun aad u ba'an. roob buu alle subxaanahu watacaala shubi doona. roobkaasi oo ka nadiifin doona baktigoodii arlada. tanina waxaa ahayd qisadii Yaajuuj iyo Maajuuj. qoomka aadka u tirada badan leh soo bixi doona qiyaamu saacuhu marka uu soo dhowaado. alle subxaanahu watacaala waxaynu ka baryaynaa inuu beladooda inaga badbaadiyo. barnaamijkeenu xalqadiisana halkaasi ayay ku eg tahay.
xalqadaha dambe intaan isuga iman doono nabadee. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ramadaan mubaarak.